madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay maalmahanba ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa maanta gelinkii dambe booqday xeebta dheer ee Batalaale halkaas oo ay kula kulmeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaas hadallo dhiirigelin u soo jeediyay ardayda wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera oo ku dhiirigeliyay inay si bartaan casharrada iyo macluumaadada kala duwan ee khuseeya dhinaca badda. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii waxa ka mid ahaa aad baan ugu faraxsanahay insha Allah taala waxaan rajeynayaa si wacan u bartaan iyagana ay tani dhiirigelin u noqoto ay dad badan oo dhalinyaro badda wax ka yaqaanaan soo kale insha Allah. waxa iyaguna sidoo kale si weyn u soo dhaweeyay socdaalkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay xeebtaasi Batalaale kula dhiirigelinayo ardaydaasi jaamacadda culumta badda ee Berbera wax ka dhigata. wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi oo iyaguna ku tilmaamay mid wax weyn u taraysa ardaydaasi iyagu lagu dhiirigelinayo sidii ay wax uga baran lahaayeen arrimaha dhinaca ka faa'iideysiga kheyraadka badda. maanta waa xeebtii Batalaale ee Berbera waxaanu halkan haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ardayda ku jirta jaamacadda badda oo uu dhiirigelin madaxweynuhu aanu ka codsanay inuu maanta si uu dhiirigeliyo inay dabaasha bartaan inay maanta kula dabaashaan halkan dabadna madaxweynuhu naga ogolaaday isagoo waqtigiisu xiriiri yahay ardaydii oo maanta la dabaalanaysa waa fursad dahabiya oo ilaahayna siiyey hadday tahay bahda waxbarashada idinkana waa fursad dahabiya madaxweynuhu dhalinyaradiisii la dabaalanayo tusaya inuu dabaaliyo meel walba garab taagan yahay. aad iyo aad baan u faraxsanahay haddaan nahay magaalada Berbera madaxdeedii ama gobolka Saaxilba waxaanu halkaa ka arkaynaa dhiirigelinta iyo daayarta madaxweynuhu dhiirigelinayo oo waa aragto imika dhalinyaradii daayarta inuu dabaasha kaga xaribsan yahay soo wax qalab aan soo aan xidhnayn iyaguna qalab xidhan aad iyo aad bay arrinkaasu dhiirigelin weyn ardayda ugu tahay waa arrin lagu farxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii maanta dareenkayga tan salaada cabir waxaan cabiri kareenin way aad iyo aad ayuu ugu bayntahay maanta kalena waxa la yiraahdaa waa maalmaha taariikhda lagu qoro taariikhdana is qortay lama qoro maanta kalena waxaan u baahanahay in page weyn ay taariikhda ka gasho waftigan qiimaha leh ee ugu soo booqday maanta xaruntii gobolka Saaxil ka arday ahaan dareenkayga maanta iyo shucuurteedu aad bay u kacsan tahay booqashada madaxweynaha Soomaaliland oo salaan halkan afka ardayda ku hadlaya salaan baan halkan uga dirayaa waxa kale sidoo kale salaamay wasiirada la socda waayo waa markii ugu horeysay ama arday ahaan